haddii aad Canada ku timid nidaamka xuntinimo group 5 kunu kamid yahay case kan aad u dhageyso khataro badan bad ka badbaadi doontaa asal loo socotaan Canada xeerarkeedu waliba qaybta immigration-ku aad bay isku bedelaa every new day there is a new law xeer cusub ay soo saaraan maalin walba dhammaan warbaahinta Canada oo ku jiro warkiiskan soo xigtay oo la yiraahdo magaciisa Star.com ayaa waxay qorayaan Canada oo 30 sano ka bacdi ka qaaday kaarkii deganaashiya waxaan naqaano PR ama Permanent Residentiga sidoo kale dalka ka saaraysa Roman okay qisada Roman ee daba geeyo Roman wuxuu dhashay dalka Czech Republic sanadkii 1997 kii ayaa wuxuu soo galay Canada isagoo dalbanaya waxa loo yaqaano refugee protection isla sanadkii ku xigay Canada way aqbashay waxay siisay refugee protection maadaama dalkiisii dhibaato ka sheeganay sanadkii ku xigayna waxa la siiyay waxa loo yaqaano PR Permanent Resident baa laga dhigay deganaashu qaatay inta wixii ka dambeysay Roman wuxuu bilaabay inuu ku noqdo Czech Republic isla 2000 buu bilaabay inuu ku noqdo ilaa 2012 uu noqonay every year uu tagi jiray ganacsiyo ka qaatay baasaboorkii Czech Republic la soo baxay isagoo ka sheegtay inaanu dalka tagi karin sidoo kalena sheegay inaanu baasaboorka dalka la soo bixi karin waxa cajiibka wax noqonaysa 1997 ilaa 2020 over 24 years muu qaadanin baasaboorka Canada just wuxuu haystay PR marka sida caadiga baasaboorka Canada markaad qaadanayso imtixaan baa la galaa taariikhda Canada madaxweynihii ugu horeeyay waa inaad waxa taqaanaa marka su'aalaha maadaama ay ku adkaadeen furuq ka qaaday baasaboorkii marka wuxuu waxaan sugay daada Afrika haddii aad Canada gaadho 50 jir imtixaan laga qaaday baasaboorka lagu dhiibiya kabacdi dibku wuxuu dhacay 2020 kii markuu dalka soo galayay ee airportka soo gaaray airportka wax maamusha hay'ad la yiraahdo CBSA Canada Border Agency ayaa waxay dib u raacdeen oo ninkani aad u baxbaxay sanadkii 2020 kabacdi ninkii ku soo hagaagay ee agent-ka ee fadhiyay counter-ka ayaa wuxuu ku qaaday sarkaalkii ayaa wuxuu sameeyay qaybta notepad-ka ayaa wuxuu galiyay in uu ku dacweeyay xeer la soo saaray 2012 oo oranaya haddii qofkaasi sifo sharci darro ku qaatay waxa loo yaqaano refugee-ga inuu refugee-ga laga noqonayo sidoo kale PR-ka laga qaaday waayo haddaad PR ku heshay through refugee-ga horeeyay waa laga noqonayaa refugee-ga PR-kana saasbad ku haysa kabacdi kiiska wax bilaabay 2020 kii 5 sano qaatay 2026 ayaa waxay maxkamadda soo saartay inuu sifadu ku qaatay refugee-nimada ay khaldaneed been uu sheegay aawadeed waa laga qaaday PR-kii sidoo kale dalka waa laga saarayaa marka haddii aad dalka soo gashay nidaamka xuntinimo oonad baasaboor qaadanin Canadiana aad isku ilaali dalka haddaad ka baxayso aad isku ogow